maxay tahay danta ka dhaxaysa Deni iyo Imaaraadka ee xilligan saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo garab ka helaya siyaasiyiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshayaal lagu wiiqayo awoodda xukuumadda Soomaaliya sida dhinacyada ciidamada dhaqaalaha iyo siyaasadda kuwa qowleysatada oo mishiinariska ama calooshood u shaqaystayaasha lagu tilmaami karo oo wadamada Soomaaliya dawladnimada u diidan ama xurguftu kala dhaxayso raba qarash ay ka soo qaadaan inay mataqaanaa qarannimadii ummadda Soomaaliyeed ku burburiyaan haddaba Cumar Cabdirashiid waa wakiilka dowladda Imaaraadka ee u dalaala siyaasadda Soomaaliya waana senator ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka waligiina kama qayb galin kulamada aqalka sare adiga waxaad ogtahay dad oo senator ah oo aan ka soo qayb galin waligood oo Imaaraadka ku nool waa ogtahay waad garan kartaa hadda adiga Cumar Cabdirashiid hadda ka soo qaadno senator waa halkaan ma yimaado soo ma xusayso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ay ku cusub tahay siyaasadda Puntland ayaa tagay dalka Imaaraadka si uu halkaas uga helo dhaqaale uu ku maamulo Puntland balse dhaqaalahaas waxa ku hoos duugan dano siyaasadeed oo Imaaraadku u gooni ah Deni ayaa safarkiisa Imaaraadka waxa ka dambeeyay Cumar Cabdirashiid oo ay banaanka taalo mucaaradnimadiisa waxaana jiro shuruudo adag oo la hordhigay madaxweyne Deni waxaana kamid ah koow in Deni uu wada shaqayn buuxda la yeesho Imaaraadka labo in dib loo soo celiyo saraakiisha Imaaraadka ee ka tagay Puntland saddex in Imaaraadka si toos ah lagu gacan geliyo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Boosaaso afar in la joogteeyo kulamada madaxweyne Deni iyo diblomaasiyiinta Imaaraadka ee jooga deegaanada Puntland iyo Dubai shan inay noqoto Puntland meesha dhaqaalaha loo soo mariyo mucaaradka madaxweyne Deni ayaa ku qasban inuu qaato shuruudaha la hordhigay maadaama uu dhaqaale doon yahay Puntland yaysan noqon goob lagu dumiyo dowladnimada Soomaaliya